Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada kanaalka tarjumaad. Waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa qiso ah nin faqiir ayaa wuxuu soo aaday suuqa lagu iibiyo dharka si wiilkiisa yar ugu iibiyo dharka ciida ah, laakiin waa uu awoodi waayey. Kadib arrintan ayuuba la kulmayba. Ka hor intaynan qisadan bilaabin, ka mid noqo asxaabta ku xiran kanaalkan. Haweeney ayaa waxay soo gashay dukaan lagu iibiyo dharka qaaliga ah si ay caruurteeda ugu iibiso dharka ciida. Waxay dibadda dukaanka ka aragtay nin dhalin yar oo qiyaas ahaan 30 jir ah ay ka muuqato faqri iyo baahi. Wuxuu bilaabay in uu istaago uuna iska fiirsado dharka, waxaana la socday wiilkiisa. Way u wacday, waxay tiri soo gal, wiilkaagana u door dharka uu jecel yahay. Asagoo xishoonaya ayuu eegay dharka caruurta ee surnaa hortiisa. Hal nooc ayuuna aad indhaha ugu qabtay asagoonan hadlin. Haweeneydii ayaa waxay u dalabtay 2 joog, waxayna gacanta ka saartay cunug yaraa. Kadib waxay bilowday inay eegto farxadiisa. Wiilka yaraa aabihiis ayaa u mahadceliyey, gurigiisa ayuuna aaday asagoo aan la qiyaasi karin farxadiisa. Ayadana markii ay dukaameysiga dhamaysatay, waxay soo aaday dhanka biil bixinta si ay biilka u bixiso, laakiin waxba laguma soo dalacin oo warqadii waaba faaruq. Balse warqadda waxaa ku qoran fariin ka socota milkiilaha xarunta, wuxuuna ku yiri anaga ma lihin aalad wax xisaabisa oo xisaabin karta lacag si bini'aadanimo ah loo bixiyay. Isla maalinkaas aabihii markii uu laabtay gurigiisa wuxuu go'aansaday in uu qabto shaqo uu ku caawinayo dadka. Wuxuu soo qaaday caagado biyo qabow ah uu ku waday, wuxuuna soo aaday booseejada tareenka. Xilliga waa xilli duhur ah, qoraxdana aad ayay u kulushahay. Kadib tareenka ayuu soo koray, wuxuuna yiri asagoo dhididka ka da'aya, yaa raba biyo lacag la'aan ah. Dadkii ayuuna u qaybiyey biyaha. Asagoo hooshiisa ku jira ayaa mid ka mid ah dadkii rakaabka ahaa oo u muuqday nin hantiilo ah, wuxuu weydiiyey maxaad u samaynay sidaan. Wuxuu ku jawaabay aniga waxaan ahay shaqaale, mushaarkaygana kama badna reerkayga, marka wax kale oo aan sadaqaysto aan biyo ka ahayn ma haysto. Sidaas darteeda waxaa ii yaala firinjeero badan oo aan kusoo qaboojiyo biyaha. Kadib xilliga duhurka ayaan dadka u qaybiyaa, waxaana ogaaday mar walbo ay sadaqadaada badato, risqigaagana wuu bataa. Ninkii u muuqday hantiilaha waa uu dhoola cadeeyey, wuxuuna siiyey taleefan nambarkiisa. Wuxuu ku yiri waxaan sugayaa inaad iga soo wacdo, waxaan kuu magacaabay xisaabiyaha shirkadayda, mushaar badan oo kugu filanna waad qaadanaysaa, waayo waxaad tahay qof daacad oo aamin ah. Farxad aad u sareysa ayuu farxay, wuxuuna u mahadceliyey una duceeyey ninkii hantiilaha ahaa. Gurigiisa ayuuna u soo laabtay asagoo faraxsan.